الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. waxay noo socday kitaabkii mukhtasar minhaaj alqaasidiin gaar ahaan waxaan kusoo dhex jirnay quruurka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay, weliba gaar ahaan quruurka dadka cilmiga leh ama culimada ah gala iyo qaybihiisa iyo dhibaatooyinka uu geysto ayaan kusoo dhex jirnay. waxay noo soo damaysay quruurka ku dhaca dadka fiqiga barta oo dadka kala xukuma oo waxay baranayaan cilmiga dadka lagu kala saaro, haddana ku dhaqmayaan oo ku camal falimayaan iyagu macnaha daacada iyo cibaadaadka ilaahay ayay ilaawayaan ay ka tegayaan iyagoo moodaya cilmigaas inay ku badbaadayaan. sheekhu wuxuu yidhi wafirqatun ukhraa ishtagaluu bicilmi alkalaami walmujaadalati fi lahwaa'i waraddi cala almukhaalifiin. waxaa jidha buu yidhi koox kale oo iyaguna culimmada ka mid ah oo isku shugliyey cilmu kalaamka. cilmu kalaam waxaa la yidhaahdaa waa cilmiga ka shaqeeya in dalaa'il xagga caqliga ah lagu sugo caqiidada. marka caqiidada laga hadlayo in xujooyin xagga caqliga ah la keeno oo marar badan waa cilmiga dadka qaarkii sifaadka ilaahay ay ku awilaan iyagoo sidii ilaahay kitaabkiisa iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam laynoo ku sheegay ama nusuusta laga fahmayo iyagoo ka leexanaya. wuuna kala duwan yahay oo mid dhow iyo mid fog labadaba waa leeyahay. walmujaadalati fi lahwaa'i iyo dood lagu doodo hawada. ahlul ahwaa waa dadka ahlu bidaca ah oo wixii naftooda ay rabto iyo hawadooda ayay nusuusta ka hormarinayaan. guud ahaan sarifka haddii ahlul ahwaa ay sheegaan waxaa loo jeedaa waa dadka ahlu bidacda ah oo waxyaala diinta aan boos ku lahayn oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka mid ahayn ayay iska jeclaystaan oo dadka ay diin uga dhigaan. iyo waraddi cala almukhaalifiina, sidoo kale waxay ay aada isugu mashquuliyaan dadka iyaga ka horjeeda oo khilaafsan inay radiyaan. sheekhu wuxuu yidhi uma haa-ulaa'i kuwaas cilmu kalaamka isku shuqliyey iyo inay dadka ahlu ahwaaga ah inay la doodaan iyo dadka khilaafsan oo kasoo horjeeda inay radiyaan daa'ifataani laba kooxood weeye, iyaga laftigooda isma yaqaani. daalla koox dhunsan asal ahaan wa muxiqa iyo koox asal ahaan xaq ku taagan. labada kooxoodna quruurku waa ku dhaca, isagaa inoo sheegaya. fadaalatu allatii tadcuu ilaa gayri sunna, daallada waxaa loo jeeda qolada dhunsan waa qolada dadka ugu yeeraya waxaan sunno ahayn, waxaan macnaha diinta ka mid ahayn oo shareecada aan ka mid ahayn oo bidco ah ayay dadka ugu yeeraya. walmuxiqatu kuwa xaqa ku taaganna allatii tadcuu ila sunna, dadka wax sunno ah oo sugan bay dadka ugu yeeray. walquruuru shaamilu lijamiicihim, haddana quruurku iyo dagnaanshuhu labada qolaba wuu gelayayo wuu shamlinaya, isagaa kala cadaynaya. marka ama daalla midda dhunsan quruurkoodu faikhtilaaruhaa daahir, inay quruur ku jiraan quruurkoodu daahir wey, maadaama iyagoo dhunsan bay baatil ku doodaya, baatilkoodaas ayay ku dagmeen. marka kuwa dhunsan in maxaanku quruurkoodu iyo inay dagmeen iyada waa iska caddaho daahir wada muuqanaya wey, iyada la iskuma hayo. wa ama almuxiqa, amaa kooxda marka ay cilmu kalaamka macnaha caqiidada ku difaacayaan ama dadka ahlu ahwaaga ah ay la doodayaan, kuwa iyagu arintaas ku gar leh, faqtilaaruha kooxdaas quruurkeedu iyo dagnaanshaheedu wuxuu ka imaanaya min xayثu inahaa dannat ana aljidaala ahamu lumuur, waxay moodayaan dooda la doodo oo la barto waxyaalaha lagu doodo iyo xujooyinka caqliga ah inayba yihiin arrimaha kuwooda ugu muhiimsan. wax weyn bay moodayaan doodaas iyo jidaalkaas, saasay u malayeen. wa afdal qurbaati fi diin illaahi tacaala, sidoo kale waxay u maleeyeen in waxyaalaha ilaahay ana aljidaala wa afdal qurbaati fi diin illaahi tacaala, sidoo kale waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala inay ka mid yihiin kuwa ugu fadliga badan fii diin illaahi tacala. ilaahay diintiisa marka la eego waxay moodeen waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan inay ka mid tahay doodaas in la barto, qawaaciddaas dooda iyo cilmi kalaamka iyo waxaas in la barto oo maantoo dhan lagu doodo, saasay moodeen. wazacamat annahu laa yatimu liaxadin diinuhu maa lam yabxath, sidoo kale waxay sheegteen qofna diintiisu inaanay uga dhammaystirmaynbaba ilaa uu daliil raadiyo
macnaha baxsiga waxa loola jeedaa marka hore waxay ku leeyihiin aqeedada hujooyin aqli ah kusoo waagaas kadib daliilka raadi oo daliilka cusko ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam laakiin marka hore aqeedada aqligu waa inuu sugaa waa ka hadii markii horeba wixii nasku sheegay aqligu uu diido banaanka dhigay ku oranayaan waa ka sida saxda ahina waxa weey asal ahaan qofku daliilka ama ha ahaado quraanka ama xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam kaas ayaa aqliga ka horeeya wixii daliilku sheego qaado dabadeedna aqligu taa waa inuu raacaa oo aqligu waa inuu daliilka raacaa daliilku inuu aqliga raaco taas khalad weey marka waxay u maleeyeen in qofka diintiisu aan dhameystirmayn mar hadii aanu samayn dalaa'il xagga aqliga ah oo maxaan ku iraahday wax ku rumeeyo sidoo kale waxay ay u maleeyeen anna man sadaqa Allah wa rasuulahu min ghayri tahriiri daliilin qofka Allah iyo rasuulkiisa rumeeya isagoo daliil aqliga ah aan keenin oo aan tahriirin daliil aqliga ah isagoo aan soo dhiraa'irin laakiin Allah iyo rasuulkiisa rumeeya isagoo daliil aqliga aan keenin oo soo dhiraa'irin waxay u maleeyeen falaysa bikamil iimaan qofkaas inuu sanahayn qof iimaankiisu u dhameystiran yahay iimaanka sax ma aha bayda فلهذا أظن الفاسد ملها فاسد كادرتيس أي قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات عمر جوذي لن وحي كجوين أي كل ما يجي ما أنتم إني بطان حجتك أقلقة أو لغدوه أي إني باران عن المقالات وحكستوا معناها لغير علماء وعي كير هذين يوحي لغدور جريء إني باران أي وقت بدل كل منيا ما أنتم نسقيكم في الله إلا سيدا إساقا إلا تهاي إنت حجو عقلية مرادينية وعمية بصائرهم أركتيال كودي حق قلبك أهيدنا ولا تليبي وحق قلبك بصائر وجمع بصيرة مرهد بصيرنا وحل وجه ذا وأركتيا حق قلبك أركتيال كودي حق قلبك ولا تيري ونمن معناها أرنتها ذاتك قلبك يسيبه ويسابه وجه فلم يلتفوا إلى القرن الأول وما أي إيجيل ما من عصن قرني هراء إيدتك النبي أمانة عليه الصلاة والسلام دقن كودي يوان النبي صلى الله عليه وسلم شهد اللهم بأنهم خير الخلق قرني هراء نبي إنه كم خانتك عينيهين خلق إلهي كوا خير كبضن واكا وحاسنا اسمه شغلين شري قرني هراء وجه هذا معناها صدح لي قرني والنبي أمانة عليه الصلاة والسلام وإليهين umada islaamka kuwa ugu khayr badan qarniga nabigu joogay iyo labada qarniyo ka dameeyay saddexda qarnina jidaalka iyo dooda iyo xujjadka aqliga ah aqeeyada in lagu sugo dadku ma aqoon danna uma gali jirin usuusta bay la fahmayay usuustaas baa lagu dhaqmi jiray la qaadan jiray wa annahum qad adraku kathiran min al-bid'i wal hawa dadkaas waliba qarnigii hore waxay soo gaareen wax badan oo ahlu bid'a ah ama dad badan oo ahlu ahwaa ah way soo gaareen waa horna waqtigii hada khawaarijtu ay bilaabatay bay ahay shiicadu ay bilaabatay mu'taziladu ay bilaabatay kulli waxyaalahaas waa jireen murji'adu ay bilaabatay falam yaj'alu a'marahum wa diinahum aradan lil khusumat wal mujadalat hadana dadka salafka ah cimriyaalkoodii iyo diintoodii kama dhigin kuwo mar walba daaw ah macnaha difaac u ah doodahaas inay inta doodayaan ama muran inay ku jiraan iyo dood cimrigoodii iyo diintoodii kuma dhamayn dan uma gali jirin walam yashtaqilu bidalika arintaasna kama aanay shuqulin oo kagama aanay shuqloomin an tafaqudi qulubihim wa jawarihim inay qulubtooda iyo xubnahooda inay ka warhayaan oo ay macnaha qulubtooda inay ka dhigaan kuwa waxyaalaha dhaqamadii xumaa oo dhan ka maran oo quruurku ka mid yahay marna qulubtooda inay sifeeyaan oo dhaqamada xumaa oo dhan ay ka sifeeyaan marna arimaha kaga mashquulin oo waqti badan kuma dhumin jirin bal lam yatakallamu fihi illa li darurati raddi ad-dalal bal waxyaalaha kama ahli jirin baba oo cilmu kalaamka ahli awaaga doodooda ma gali jirin baba marka qaar ku daruuro inay keentay mooyee in qof baadinimo ku sugan inay radiyaan mooyee mar dhif ah waa ka ma dhici jirin sida ayaantii Imam Malik rahimahullahu ta'ala
ninkii intuu yimid weydiiyey yiri kayfa istiwaa istawuhu xaal loola jeeda quraanka Allah waa tuugin mar badan ar-rahmaan ala arshi istiwahaas maxaa loola jeeda marka imaam Maalik rahimahullahu ta'ala waa tuu yiri al-istiwaa'u ma'luum istiwaaha luqada carabiga waa lagu yaqaan ala wa tafa'a asxaabtii isma weydiin jiray dabeedna waa tuu wal iimaan bihi waajib in la rumeeyana waa waajib istiwaaha ilaahi subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay quraanka waa ilaa 7 aayadood ilaahay ku sheegay subhanahu wa ta'ala أما إن كيفية الإسويدية والكيفية مجهول كيفية لكن استووا سيدا ودعي مجهول وي إلهي بحق غير يستوى سبحانه وتعالى سيدا إلهي ذات ليس حق غير إنا نؤغين سيدا سكال أي إلهي صفات كيس حقيقة وضع إنا نؤغين واكا مركا كيفية مجهول وي مركا واتويري والسؤال عنه بدعة أرنت إن الإسويدية وبدعه كيف إن ليلانه وبدعه dabeedna waa tuu yiri ninkan ay bidc weeye iga saara waa tuu markaas laga saar marka mar ifay dhici jiray فإن رأوه مصرا على بدعته هذه أركان قفك أهل البدعة إنه بدعته سكون دقيقة وأن لقى فجين كريم هجروه وكا هجري جرين فرهك غالي جرين وكتك جرين وحو مرة عن جرين من غير مباراة مران الآن ولا جدل يدود الآن يغان لدوذين ووحبضا عن لمرمين فرهك غالي جرين وقد روي في الحديث حديث وحال قوري نبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل قوم مركي هرونين كقضال مدومان إلا بس وحال السيادات معناها عددكم مركي حقا كدومان وحال قو انتحاما مرن انت وايس هايستا قرآنك والغم رمية حديثك والغم رمية دينك والغم رمية عليه الصلاة دينك والغم رمية أما حديثك والغم رمية عليه الصلاة والسلام أما أرمك والغم رمية مركي انت مرمية قوم الأميوي قال بدو توي النبي عليه الصلاة والسلام هلون كقضال إيواغن هنو سنايين إلا بوحل السيايل وانتحاما دوت حديث كاسين حديث سبان ويه إمام ترمذي ابن ماجه يا أحمد يا رب بدن باوريي وأنا حديث حسن وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعد وأعلام رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب فرقة كلا جده أو يقولنا مقع علموته ويسكو شغليي تدك إني وعديان وأعلام رتبة حق الدرجة وحا وصر يقوى أصلا أقره من يتكلم في أخلاق النفس تدك إن بدن كهد الله أخلاق النفس وصفات القلب هي صفات كون وناكسن وقفك لقربه معناها قلبي يسئني كجرا ومن الخوف فيها عبسي إلهي لقى عبصنيه والرجاء نحريس إلهي عقابس لقى عبصنيه والرجاء رجال رجيني إلهي نحريس تيسا والصبر الصبر إلى دار ما قف صبر بدر ونقضه مركز الانتحامه والشكر نعمة إلهي لقى شكر نقضه والتوكل إلهي إلا تلصار صدق والزهد أدوك إن لقى زاهده واليقين وحيالها إيمانك اللي قبعها يقف قلبي يسا يقين إنه كجل بقولك بقول أمه يسين والإخلاص إلهي والعبادة الله برحتره أعمال القلب وكواس يصفات القلب كواس أيدك كوع يعني بدر كواس وفي عنه والحال يظنون وهم يظنون أنه إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها وكما يشكو إليسين waxay moodayaan markay arimaha ka hadlayaan oo dadka ay ku wacdinayaan wahum munfakuuna anha iyaga arimahaas iyaga laftigooda qulubtooda ay ka maqan tahay oo qulubtooda kuma jiro arimahaas oo khoofkii iyo jihii iyo tawakkalkii iyo qulubtooda kuma weyn hadana dadkii ku wacdinayaan maxay moodayaan marka annahum min ahliha inay ehelkeeda ka mid yihiin mar dadku ku wacdinayaan baba inay sifaadka wanaagsan ehel u yihiin bay moodayaan laakiin sifaadka iyaga qalbigooda waa ka maqan yihiin dadkan waa ku wacdinay sheekhu wuxuu yiri fahaulai yad'una ila Allah wa hum haribuna minhu kuwaas ilaahay xaqiisa dadka ugu yeerayaan dhinaca kalena iyagii baa ilaahay ka cararay afkana dadkiiba ilaahay ugu yeerayaan ilaahay laga cabsado in la rajeeyo ilaahay la tala saarsado in la sabro ilaahay loo shukri noqo zuhdigii adduunka laga zaahido hadana iyagu arimaha ku dhaqmayaan way ka tagayaan marka waxay ka dhigayeen sidii dad ilaahay xaqiisa dadka ugu yeeraya dhinaca kalena ilaahay ka sii cararaya subhanahu wa ta'ala fahum a'zamu an-nas ghirrah kuwaas waa kuwa ugu weyn ee xagga dagnaanta dadku ay dagmaan kuwa ugu dhibaatada badan way aad u dagmay wacdigooda afka waxa ka soo baxaya kaliya ku dagmay ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعد إلى شطح وتلفيق كلام خارج عن قانون شرعي والعقل طلبا للإغراء
waxa ka mid ah kuwaas kuwa wacdiga dariiqii loo jeexay oo ahaa hadma dileys wacdinayo in quraanka iyo xadiiska nabiga la isku wacdiyo kaleey salaatu wasalaam iyo salafkii waxyaalaha wanaagsan oo ka sugnaaday in la isku wacdiyo waa ka leexanay wacdiga dariiqiis ila shadax bay aaday shadax waxa weeye walaadada qaarkood intay jidboodaan hadalla aan sax ahayn oo ka soo baxa oo mararka qaarkood xataa aqiyada ku dhimaya sida maxaan ku leeyahay Xallaaji iyo ibn Arabi iyo rag badan lagu eedeyn jiray wax jidboonaya qofkii markaas uu ku hadlaya hadalla mararka qaarkood kufri keeni kara ama khaldan buu ku hadlaya sax ahayn shadax kuwaas waxa si aaday wa tafsiir kalaamin kharij an qanun sharci sidoo kale waxay isu burayaan hadal aan islahayno shariicada ka baxsan qanun sharci waa jidkii shariicada lagu yaqaan hadal ka baxsan bay isu buraan ay wax ku wacdinayaan oo aan sax ahayn iyo wal aqli qanunkiisa mararka qaar xataa ka baxsan dalaban lil iqraab iyagu inta raadinaya wax qariib oo dadku aanay aqoon inay sheegaan bay rabaan waxaas u raadinayaan hal ila war hebel cilmi dadku aanu aqoon buu yaqaan waxyaala yaab loo keenay waa ka markaas qaanuunkii sharciga iyo kii aqliga wax lagu wacdi jiray oo dhan ay ka tagayeen ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن يكثر الصياح في مجالس والتواجد ولو على أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الجنس كوا waxa kamid ah marar badan bay waxay soo dileeshanayaan gabayo dadkii hore ay tiriyeen oo bi ash'ar wisaalku waxa weeye dad muddo dheer kala maqnaayo isticlaayo ishelay wal firaaquna waxa weeye dad muddo dheer isticlaayo kala tagay dantu ay kala kaxaysay waxyaalahaas dadka qalbigooda lagu soo dhaweeyay lagu jilciyo ujeedaduna waxa weeye inay buuqa badiyaan meelaha la fadhiyo inta dad wax sheegaya inay noqdaan oo iyaga kaliya dhageysto watawaajid waxa weeye jidba iska doondoon waa ka wujdigu waa fiican yahay isaga markii qofka quraanka ama xadiiska lagu wacdiyo ama salafka dhaqankoodii qalbigiisa inuu cabsi ilaahay ka dareemo iyo xusni iyo murugo iyo waka tawaajidna waxa waa jidba iska yeelayeen arimahaas iyadoo ka dhabahayn dadka inuu tusiyo inuu jidboodayo wacdiga waanada inuu ku jidboonayo waa ka walaw ala aqlaal faasida qaarkood dano faasida bay kaleeyihiin ba oo xoolo ku heliyo xamar waxaan garanayaa yoobsan iyo dadka arki jiray kuwa intay soo istaagaan doonto isku hareeranayaan maantana waxaan la aqoon bay daldalaya فهؤلاء شياطين الإنس كواس إنسك شياطين تسويه مرد أرنتو أي كتهي دن الدون فاسد أي كرادينية وبالله توفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين